kulanti wacan dhammaan daawadayaasha ku xiran janaalkeena Farqurxin waa idin salaamay dhammaantiina meel kastoo dunida ka joogtaan oo janaalkan kala socotaanba. run ahaantii janaalka Farqurxin markasta waa janaalkiina, waa janaan asla leenahay. run ahaantii waa asla aasaasnay intaa ka war haysaan xilli maraaxiil adag oo run ahaantii aad nagala soo gudbiseen oo soo maray. janaalka Farqurxin waa janaal barnaamijyo fara badan ay ka socdaan. janaalka Farqurxin markii la aasaasay waxyaabo ku canbaxay waxa kamid ahay barashada farqurxinta ama qaabka qoraalka loo qurxiyo ayaan ka bilaabnay marka hore. maraaxiil fara badan oo noocaas oo kala soo maray run ahaantii waa ka soo gudubnay, waa nala soo gudbiseen. aad u mahadsantihiin dhammaan daawadayaashii asxaabta aan ku leenahay baraha bulshada aan la hadlaa. sidoo kale inta janaalka Farqurxin waxyaabo bixiyo waxa kamid ah course English oo dhowr nooc ah, bilow, dhexdhexaad iyo dhameystir intaba ah. run ahaantii course-kaasna wuu bixiyaa janaalka qaab offline ah iyo qaab online ah buu ku bixiyaa. sidoo kale qaabka online-ka ayna waxaan soo dhignaa baalka maxaa wahay janaalka cidii u baahan marka qaabkaas bortale aan diyaarina lagu gudbiyaa. qaabka offline-ka ayna kole macallimiin u diyaarinay oo qofka markastaba baahida uu qabo luqadda Ingiriisiga ka qabtirayso. sidoo kale janaalka Farqurxin waxyaabaha ama barnaamijyada ka baxa waxa kamid ah barnaamijka loolan loo yaqaano. barnaamijkaas loolan waa barnaamij aqoon kororsi waaye, annagana wax baan ka faa'iidnaa, iyagana wax bay naga faa'iidaan. run ahaantii wax markastan run ahaantii waa barnaamij aan kala faa'iidaysano. janaalka Farqurxin waa janaalkiina, waa idinka mahad celinayna. run ahaantii hadda maxaa baalka isaga ma dhahayno views-ka nagu yar, subscribe-ka nagu yar inta ma dhahayno. alxamdulillah janaalka wuu shaqeeyaa, wuu fiican yahay, waxba kama haleysno. laakiin talooyin ayaa jira inta badan, waayo maadaama laysla leeyahay janaalkii ee bulshada iyo annaga uu naga wada dhexeeyo, wax nagu kooban keligeen maahan. fikirkan hadda inaan janaalkan aasaasnaba asxaab badanaa marka hore nagala qayb qaadatay. haddeertaan janaalkii meel fiican oo soo gaaray alxamdulillah. maadaama meesha oo soo gaaray, dadka qaar asxaabta qaar ayaa si gaargaara fikrado noogu soo diray Telegramka, WhatsAppka iyo qaybta faallada oo janaalka leeyahay ku soo direen. marka talooyinkaas waxaan jeclaanay inaanan macnaha qof iyo laba iyo taladiis aan qaadanin. waxaan jeclaanay in asxaabta baraha bulshada aan ku leenahay ee janaalkan ku xiran, asxaabtaas oo maanta meesha jooga soo gaarsiisay janaalkan, inaan ayaga la wadaagno. daawade maxaa jeclaa lahayd in janaalkan lagu soo kordhiyo fikir ahaan, program see aad jeclaa lahayd in lagu soo kordhiyo. waa midda koowaad aan jeclaanay. run ahaantii wixii tala oo noo haysid qaybta faallada ama ciwaan kor ku qoran inaan nooga reebto. ma jeclaa lahayd in janaalkan Farqurxin janaal la yiraahdaa, magacaas Farqurxin in laga bedelo ma jeclaa lahayd? haddaad jeclaa lahayd oo jawaabtada ha ee tahay run ahaantii waxaan jeclaa lahay magaca aad noogu bedeshay oo fikir ahaan aad qabto qaybta faallada ama ciwaan kor ku qoran aad noogu reebtaan rajeelahay. soo dhawaada xilli kasta. run ahaantii faalladiina, taladiina wanaagsan oo asxaabta ayna siiyaan, adinkana aadna siisaan, runtii waa wax keliya ee janaalkan markasta oo ku shaqeeyo. waa idinka mahad celinaynaa meesha wanaagsan oo na soo gaarsiiseen. inta dhiman run ahaantii waxaan rajeynaa annagii iskaalmaysan doono, ilaahayna insha Allah oo garabna siin doono. inta aan rajeynaynana inuu noo dhammaystiri doono Allah ayaan ka baryaynaa. run ahaantii marka soo dhawaada, janaalka waa janaalkiina. markastana faalladiina, taladiina iyo tusaalihiina wanaagsan waa waxa keliya oo janaalkan ku howlgalo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.